qasabkii aan soo gadanay waa noocan fikraddan run ahaantii waa fikrad ganacsi oo aad u ballaaran dhalinyarada waddanka joogtana waa inay ka faa'iidaystaan saaxiib yaal waxyaabaha aad ku arkaysid dalalkan Soomaaliya dariska ah gaar ahaan dalkan Kenya waxaa ka mid ah dadka dhalinyarada ah ayaga shaqo abuur samaystaan gaar ahaan ninkan aad u jeedaan hadda meeshan wuxuu ku gadayaa qasabka wuxuuna ku gadayaa qasabka noocyadooda kala duwan weli qiimo aad u raqiis ah ayuu ku gadayaa midkan hadda u jeedaan waa lacag 50 shilin ah Soomaali ahaanna waa lacag nus dollar ka yar hadda waxaan ka gadanaynaa qasabka ayaan ka gadanaynaa dadkan aad u jeedaan waxbarashada inta badan way dhameen ilaa heer jaamacadeed ayay gaareen haddana waddankooda ka mini jabaan oo waxay sameeyaan dalkooda ay shaqo abuur ka sameeyaan hadda waxaan ka gadanay noocan qasabka ah waan isla dhaminaynaa ahantii aad ayuu u macaan yahay haddana lacag raqiis ah ayaa la gadaa qasabkan dadka dhalinyarada waddankan joogo waa in ay shaqo abuurkan oo kala samaystaan ayna dalkooda aaminaan inkastoo dalka uu dowlad fadhiis ay ka jirin qasabkii aan soo gadanay waa noocan fikraddan run ahaantii waa fikrad ganacsi oo aad u ballaaran dhalinyarada waddanka joogtana waa inay ka faa'iidaystaan waa qasabka laga sameeyay sokorta ayay waddooyinka lagu gadaa si dadka ay u gataan qiimo raqiis ayuu ka gadayaa waana fikrad ganacsi run ahaantii dadkan waddankan ku nool run ahaantii fikrada aad u cajiib ayay la imaadaan inkastoo dalkan aysan oolin shaqooyin aad u fara badan qof walbana wuxuu sameeyaa shaqooyin iskiisa ah ayuu samaystaa oo shaqo abuur naftiisa ayuu sameeyaa tanina waxay ka mid tahay shaqo abuurta dadkan dalkan jooga ay samaystaan aad iyo aad ay u mahadsantihiin dadkan soo follow garee muuqaalkana like garee